Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaynu wax ka taaban doonaa cashir ku saabsan cashirada communicable disease-ka ama xanuunada faafa sida u taqaanaanba. Cashirkaas oo ah typhoid fever-ka ama xanuunka loo yaqaano typhoid ama typhoid-ka. Xanuunkaas oo ah xanuunada inta badan geyiga Soomaalida isaga badan ama Afrikaanka ama dalalka marka Aasiya ahba. Waa xanuun aad iyo aad ay dadka markaasi uga cawdaan ama goobaha isbitaalada ama kiliinikada dadka lagu dabiibo ay u badan yihiin markaa typhoid. Bal xanuunka typhoid-ka inaynu ka warranno. Typhoid muxuu yahay, maxaa keena, sideeba u gudbaa, iyo gabadha markaa ugu caansan ee loogu magac daray ama loogu naanaysay xanuunkan typhoid Mary la yiraahdo taariikhdeeda ayaan dul istaagi doonaa. Marka xanuunkan siduu lagu shaybaadho oo sida lagu daweeyo iyo sida looga hortago insha Allah. Iska gudagalno cashirkeena markaa. Xanuunka typhoid-ka la yiraahdo. Typhoid ancient Greek word waa erey qadiimi ah oo ereygaas oo kasoo jeeda markaa luqadda Greek ama dalka Greek waxaana loo yaqaanaa typhus oo macnihiisana yahay markaa smoke ama cloud. Marka smoke ama qiiq ama cloud marka ama daruur that cause taasoo sababta marka disease xanuun or madness ama waali. Marka ereyga typhoid macnihiisa markaan eegno waa erey Greek ah oo loo soo gaabay ama la yiraahdo typhus oo lagala jeedi jiray markaasi xanuunka loo yaqaano qiiq ama waxaanu naqaano ama uuro ama daruurta ama qiiqaas oo sababi jirta ama keeni jirta xanuunka markaa xanuun ama waali. Marka hore berigi hore sidaas loo yaqaano faham fiicanna lagama haysan markaa. Waa intii ka horreysay ninka Hippocrates la yiraahdo oosan sheegin oo oran xanuun sidiisa waxa laga qaadaa cimilada ama hawada xumaato ama biyahan cabayna ama cunada ay cunayna wasakh noqoto ayaa xanuun sidiisa laga qaadaa. Marka ninka Hippocrates la yiraahdo father of medicine-ka uu inoo bayaamiyey. Inta ka horreysa xanuunka waxay u yaqaaneen markaas dadkaasi inuu yahay xanuun supernatural wax markaa kasoo dhaca samada kaasoo markaa lagu ciqaabo dadka xumaanta sameeya. Kadib markay arkeen gaaladii waaweyneed iyo markaa qaarkii ay u haysteen wadaadadoo xanuunsanaya kadibna la ogaado la yiraahdo xanuun noocaas ma waxyaalo kale taa keena. Anyway inaga naftirkeenaba xanuunka loo yaqaano typhoid waxaan ka aaminsanahay Soomaalida inteeda badan ay ka aaminsan yihiin inuu yahay typhoid-ka kaneeco xumaatay oo kaneecada markay xumaato ay typhoid isku bedeshay inagoo markaasi faham fiican ay dadkeena aysan ka haysan. Si kastaba ha ahaatee typhoid waxa waa systemic disease waa xanuun markaa jirkoo dhan markuu dhiig raaco jirka markaa system kasta ama organ kasta ee markaa saameeyo waana xanuun labadaba noqdo acute degdegna ku dhici kara chronicna noqdo muddo dheer qofka hayn kara kaasoo ay sababtay salmonella typhi marka bacteria loo yaqaan salmonella typhi ay keento. Bacteriadaas waa gram positive waxa weeye waa gram negative kasi ah markaa waa bacilli xagga qaabka mashiinka markaan eegayno kana si ah groupka loo yaqaan markaa enterobacteria la isku yiraahdo ayay ka mid tahay markaa salmonella typhi. Laba nooc waa salmonella typhi iyo paratyphi la kala yiraahdaa laakiin tan inta badan xanuunka inagu keento ama caansan ama halista waxa salmonella typhi. Xanuunka sifiisa characterized by waxa sifiisa lagu gartaa fever xumad headache madax xanuun prostration markaa awood darri ama weakness abdominal pain markaa calool xanuun iyo rose colored rash markaa finan qofka kasoo yaaca kaasoo u eg markaa midabka casaanka biyaha markaa pink u eg markaa inta badan dadka cadaanka ah unbaa finankaasi ama qofkii maareenka baa lagu arki karaya dadka inta badan madow waxa weeye uu iska qarsoon yahay. Salmonella typhi marka xanuunka typhoid fever-ka u naqaano waxaa keeno marka germs microorganisms soo sheegnay marka bacteria laba nooc baa loo qaybaa typical form nooca marka inta badan la isla yaqaano halista ah enteric fever-ka ama typhoid fever-ka loo yaqaano waxaa sababta markaa salmonella typhi bacteriadaas sababta oo marka tacaanta ah ama halista ah. Less severe marka nooca inta badan aan halista badan aan lahayn
waxaa sababta salmonella paratyphi baa loo yaqaan AMBNC marka tan waxaa lala xiriiriyaa marka salmonella typhi in human relation ay la leedahay inta badan bini'aadamka xanuunka marka halista ay ku keento paratyphi AMBNC waxaa laga qaadaa iyada la yiraahdaa marka waxyaalaha loo yaqaan marka xoolaha oo kaleeto marka ayaa laga qaadaa digaaga ayaa laga qaadaa beedkiisa ama buskudka ama noocyadiisa kala duwan marka inta badan waxaana weeye midaan halis badan aan sii lahayn epidemiologically xanuunka siduu bulshada ku dhex yahay ama ugu fitiyay markaan eegno typhoid iyo paratyphi marka labada nooc waxa uu ahaa endemic waxaa laga helaa endemic marka iminka jeermiska wuxuu iskaga dhex jiraa oo laga helaa in the Indian subcontinent marka qaybo ka mid ah marka qaaradda Hindiya south east bariga koonfurta bari far east iyo bariga fog ee Aasiadaba middle east iyo bariga dhexe iyo Africa central bartamaha iyo south iyo koonfurta marka America Mareykanka marka meelahaas oo dhan ba jeermiska waxa weeye waa laga helaa oo jeermiskan waxa weeye wuu ku badan yahay high incidence xanuunkan dhicitaankiisa wuxuu dhacaa ama incidence ama new caseska xanuunka dadka usoo dhacaya wuxuu badan yahay ama dadka xilliyada qaadan waxaa ka mid ah feel xilliga markaa deyrta ah iyo sama xilliga xagaaga markaan xilliyada eegno xilliyada markaan eegayno wuxuu xanuunkan aad u badan yahay dhicitaankiisa ama bulshada laga helaa xilliga deyrta iyo xilliga markaa xagaaga North America waqooyiga Mareykanka Europe iyo Australia enteric fevers marka bakteeriyadan xumada keenta oo kale waxay dhacdaa almost gebi ahaanba exclusively as imported infections marka xanuunkan iyaga jeermiska lagama helo laakiin qof xanuunka qaba ayaa u keena qof iyaga ka mid ah haddii uu tago dalalkan aan soo sheegaynay marka Mareykanka qaybihiisa marka iyo markaan qaybaha iyo meelaha aan soo sheegayno kale markaan eegno oo kaleeto wuxuu xanuunkan uu ku badan yahay marka xilliyadaas uu u badan yahay incubation periodkiisa markaan eegno xanuunkan marka jirkaaga uu soo galo ilaa intay calaamadaha kasoo bixi karayaan waxaan ku qiyaasnaa oo la yiraahdo marka isbuuc ilaa 14 cisho marka 8 cisho ilaa iyo 14 cisho ama si kale markaan u dhigno waa 1 week to 2 weeks is inversely related waxaa si cagsi ah loola xiriiriyaa number of organisms ingested marka tirada jeermiska ee qofka uu marka cunada u raaca ama biyaha u raaca ayay ku xiranta haddii jeermis fara badan waxaa la yiraahdaa bacteriadan salmonella typhi paratyphi waxaa la yiraahdaa 100,000 oo ka badan haddii ay jirkaaga ay soo gasho unbuu xanuunkan kusoo ridan karaya okay WHO estimated hay'adda caafimaadka adduunka waxay ku qiyaastaa infectis inay qaadaan ama ay ku dhacdo salmonella typhi ama cudurkan loo yaqaan xanuunka typhoid feverka qiyaas ku dhow 21.6 milyan oo dad ah inay sanad kasta ay qaadaan xanuunka typhoidka waxaa u dhinto 216,000 ilaa 600,000 ayaa sanadkii u dhinta marka waa tirada dhimashada ayaa lagu qiyaasaa intaa tirada markaa dadka xanuunka qaadana waxaa lagu qiyaasaa 21 milyan dhibic 6 ayaa lagu qiyaasaa markaa sanadkii inay qaadaan intaasna u dhimato dadkaasi qaaday ama u dhimanaya waxay ku nool yihiin boqolkiiba 62 of these occurring Asia marka boqolkiiba 26 waxay dadkan xanuunkan uu ku dhacay ay ku nool yihiin dalka Asia boqolkiiba 35 waxay ku nool yihiin Africa kuwaas xanuunkan lala xiriiriyay xagga marka nadaafadda meelaha nadaafadooda ay liidato ama hooseyso dunida saddexaadna ah dhaqaalahooda marka uu iska hooseeyo oo ka hortagga xanuunkan iyo daweyntiisa ay liidato ayaa marka loo aanay xanuunkan inuu qayb ay ka yihiin history of Malon or typhoid Mary marka taariikhda bal aynu in yar aynu ka dul istaagna aynu taabano gabadhii ku caan baxday marka xanuunkan oo Mary Malon ayaa gabadhaas la oran jiray waxaana markii dambe lagu naaneysay gabadhii ama islaantii marka la nooleed xanuunkan ama lala karantiilay rubac qarniga
Mary Malone waxay ahayd gabadh u dhalatay dalka Ireland, marka gabar Irish bay ahayd. Waxayna ku dhalatay markaa dalka Ireland bishii markaas September bishii 9aad 23keedii 1869kii ayay gabadhaasi ayay dhalatay. Waxayna baqtiday ama dhimatay November 11 1938 marka bishii 11aad 11keedii 1998 ayay gabadhaasi ay baqtiday marka ama dhimatay. Commonly known as waxaana gabadhan loo yaqaanay ama lagu naanaysi jiray Typhoid Mary ayaa lagu naanaysi jiray. Typhoid Mary ama Malone was the first famous carrier of typhoid fever in USA. Gabadhani waa gabadhii ugu caansaneyd ama ku caanbaxday xanuunsidaha ama bakteeriyadani ku caanbaxday bay ahayd. Waxayna gabadhani usoo haajirtay waxay kasoo haajirtay dalka Ireland waxayna usoo haajirtay dalka Mareykanka iyadoo qoys sabool ah ka dhalatay una soo nool doonatay waxa loo yaqaan markaa dalka Mareykanka ayay nolol ahaan usoo doonatay. Sheekooyinka dunida caafimaadka ku caanbaxay ee xiisaha leh ayay ka mid tahay sheekada gabadhan reer Ireland ee Mareykanka usoo guurtay qarnigii 20aad 1900. Mary Malone waxay kasoo jeeday markaa siday hore usoo sheegnay qoys sabool ah. Waxayna ka shaqayn jirtay markaa shaqadeedu ay ahayd cunno karin ayay ahayd markaa oo waxaa la oran jiray the kitchen ayaa sheekadeedii markaa ku caanbaxday. Haddaba Typhoid Mary markaan eegaynay some individuals have a natural immunity to salmonella marka dadka qaar markaan eegno waxay difaac dabiici ay u leeyihiin markaa xanuunka marka bakteeriyada loo yaqaano salmonella typhi waxaana loo yaqaana chronic carriers waa dadka muddada dheer xanuunsidaha ah. They contract only mild or asymptomatic dadkaasi markaa bakteeriyan jirkooda ku nooshahay qaarkood calaamado yar oo iska fudud mild ayay yeeshaan ama asymptomatic wax calaamada ma laha marka calaamadihii lagu garanayay marka disease xanuunka but still carry the bacteria laakiin weli waxay ku sidaan bakteeriyadii in their body jirkooda for long time muddo dheer. These case servers bukayaashan waxay u shaqeynayaan as a natural reservoir of the disease waa halkii dabiiciga ahayd ee markaa xanuunkan uu deganaa ee laga qaadayo markaa xanuunkan laga qaaday. Approximately ku dhawaad ama qiyaastii 3% ayaa dadka ay ku dhacda salmonella typhi ayaa noqda carrier. 0.1 ama 0.1% ayaa those infected non-typhoidal salmonellada waxaan kala jeednaa waa paratype A and B C waa kuwii markaa bakteeriyada fudud ayaa iyagana waxay noqdaan chronic carrier which may last for few weeks to years waxaa laga yaabaa dadkaasi carrierka ah inay muddo yar oo maalmo ah ama isbuucyo kooban ilaa sanado ay bakteeriya jirkooda ay markaa ay ku jirto. On such case marka bukayaashan waxaa ka mid ah Mary Malone gabadha loo yaqaano who was hired taasoo u shaqayn jirta as a cook cunno kariya at a several private homes in the New York area in the area 90 markaad guryo ayaa xaafada ay shaqaale ka ahayd gabadhaasi xaafada ay shaqaalaha ay ka ahayd oo waxayna ku taala markaa caasimadda Mareykanka waxayna cunno karin ay ka 1900 marka dadka ay u shaqayn jirtay waxay ahayd qoysas markaa niman looyaro ah dhaqaatiir ah saraakiil ah qaar bangiyo waaweyn ee markaa bangiyo ka shaqeeya ayay cunnada markaa u karin jirtay markaas dadka tujaarta ah ayay u karin jirtay markaa cunnada. Inkastoo la yiraahdo school marka hore fast foodska waxay cunnada yaryar fudfud school bay hortii ku iibin jirtay marka xanuunkan uu yara dilaacay lagu ogaaday ayaa markaa ka tagtay u wareegtay markaa in xaafadaha ay shaqaale guryaha ay ka noqoto markaa. Mary Malone causes several outbreaks marka Mary Malone waxay sababtay marka waxa loo yaqaano inuu xanuunkaasi uu ka dilaaco qoysaska ay u shaqayn jirtay markaa. Muddadaasi ay shaqaynaysay markuu xanuunkii uu yara qarxaba waxay samaysaa inay gurigaasi ka cararto ee xaafad kale u guurto markaa iyada. Moving from household to household marka qoyskana u shaqaysaa way ka carartaa markuu xanuunkii yara dilaacay aragtaba waxay u tagtaa markaa qoys kale.
always disappearing before the epidemic could be traced back to the particular house Mary was walking. Marka xanuunkii way iska fariiro bidixda ka baxda markii bashi waxa way iska dhowmataa markuu xanuunkii uu yara soo yaraysto yara dilaaca reerkaas. All together isuwadageyntii gabadhan loo yaqaan Mary Malone waxay usoo shaqaysay markaa 7 qoys. She had worked for 7 families. 7 qoys bay usoo shaqaysay with 51 case of typhoid. Kow iyo konton qof ayaa waxaa la yiraahdaa ayaa xanuunkii qaaday 3 ka midna waa u dhinteen. Tirada waa inta la rumaysan yahay laakiin si ka badan ayaa jira marka 3 u geeriyootay 57 qof oo xanuunkaasi qaaday ayaa 7 qoys ee markaa ka dhashay. Goor ay xeerihii fandhaal ay kala dhaceen ayaa outbreak-gii la ogaaday oo xilligaas markaasi waxaa ogaaday nin injineer ahaa oo weliba sanitary engineer ahaa injineerka xagga nadaafadda ka shaqeeya ayaa bartay islaantaas oo ku eedeeyay inuu iyada xanuunkan ay qabto oo dadka ay u gudbisay markaa iyadana wayba dafirtay oo waxay isku dartay inay xanuunkii ay tiraahdo mid calaamadaha ay maadaama mid wax calaamadaha xanuunka lagu ogaado aysan lahayn markii lasoo qabtay waxaa lagu karantiilay jasiirad ka baxsan markaa New York City oo dadka xanuunada la karantiino markaa la geeyo markaasi xilligaasi she was finally overtaken by the authority marka dowladdii baa la wareegtay 1907 baana xilligaasi ayaana waxaa lagu karantiilay committed to an isolation center of Northern Ireland marka jasiirad ka yar baxsan oo markaa New York ayaa markaasi lagu karantiilay oo lala wareegay maadaama dowladdii ay ogaatay in gabadhan markaa xanuunka ay qabtay. There she stayed until she was released. Halkaas ay ku karantiilneed oo ay ku nooleed waxaana la soo daayay 1910kii 3 sano kadib on the condition xaaladda lagu soo daayay that she never accept inayna an employment involving for food handling inaysan inay aqbasho inaysan dib uga shaqaynin oo ku lug lahaanin wax cunno karin la yiraahdo ama cunno laga shaqeynayo sidaas ayaa gabadhaasi lagu sii daayay maadaama ballantaasi ay qaaday markaa but she was found to work as a cook haddana dibba waxaa loo ogaaday inay markaas ay gabadhani cunnadii cook ahaan ay u shaqeyso markaa cunno kariye and to cause a typhoid outbreak again waxaana mar labaad ay sababtay xanuunkii inuu dib u dilaaco. She was admitted back to North Brother Iceland where she lived until her death of 1938. Kadib waxaa dib loogu celiyay markaa jasiiraddii halkaasoo intii ay ka dhimanaysa gabadhaasi ay ku nooleed ilaa 1938. Dhimashadeeda waxaa loo aanayaa ama la yiraahdaa waxaa ku dhacay la yiraahdaa off markaa pneumonia inkastoo bugaagta qaar ama dadka qaar ay yiraahdaan gabadhaasi waa la dilay si kastaba ahaatee gabadhaasi waxaa weeye taariikhdaas ayay leedahay oo marka maadaama taariikhdaas ay leedahay sida waxay ka tahay sheekooyinka caanka ah markaa xagga caafimaadka ayay qayb baal dahab ay kaga jirtaa gabadha. Okay, haddaba xanuunka sidee buu ku faafaa ama uu ku gudbaa? Enteric fever are transmitted by xanuunkan wuxuu ku gudbaa oral fecal route marka cunadii iyo biyihii marka ay soo gaadho marka saxaro through contaminated food marka cunadii saxaro ay soo gaadho ama milka caanihi ama water biyi marka saas ay ku gudubtaa marka waa saxaro marka aan isha qabanin ka soo gaadho marka cunadii ama biyihii ama waxyaalihii ay cunayna marka soo gaadho ilaha laga qaadi karayo waxa loo yaqaan infected excreta of the carried individual marka qof qabo infected qof qabo markaasi xanuunkan kaasoo markaa saxaradiisii ay la socoto markaa saxaradiisii ay bacteriadan ay ku jirto marka qofkaas wuxuu noqon karaa patient qof cusub markaa buka ah oo saxaradiisii ama kaadidiisii ay bacteriadan la socoto ama carrier qof inuu muuqdo inuu caafimaad qabo oo wax calaamado aan leeyahay ama calaamado yar leh kaasoo markaa shed bacteria infest marka bacteriada ay saxaradiisa la socoto marka saxaradaasi bacteriadaas ay ku noosho waxay ka iman kartaa qof buka ah
ama qof markaa xanuunsida ah markaa kaasoo markaa makaadidiisaba ay la socoto. Okay, waxa kaloo ay gaari kartaa waxa loo yaqaan saxaradaasi haddii biyihii ay soo gaadho ama cunadii. Biyahaasi haddii ay lagu bacrimiyo ama lagu koriyo ama markaa lagu beeray khudradda qaarkood loo soo goysa saladka oo kaleeto, fruitiska qaarkood oo kale oo lagu meero oo kaleeto, iyadana waan ka qaadan karnaa. Ama biyihii oon cabno ama cunadii, ama qof xanuunkii qabo oo markaasi cunadii markaa waxyaalahaasi inooga shaqeey. Marka waxa weeye in short cunadii iyo biyihii aynu isticmaalaynay oo bakteeriyada soo gaadho oo ayn liqno oo caloosha ay tagto sidaas ayaan ku qaadi karnaa markaa. Pathogenesis sida qaabka xanuunkan uu ku dhasho. Natural infection sida caadiga jeermiskan enteric feverka markaa typhoid ah wuxuu ku dhashaa ingestion inaga oo markaa cunno ama cabno markaa cunno ama biyo ay bakteeriya ku jirto. Kadib bakteeriyadaasi waxay soo galaysaa markaasi caloosha imanaysaa. Markay caloosha ay timaado way kasoo gudbaysaa markaa calooshii waxayna usoo gudbaysaa markaa intestinalki weliba qaas ahaan mindhicirka yar small intestineka ay imanaysaa halkaasoo bacteria penetration ay ku samaynaysa markaa xuubkaas ay kasii gudbayso. Okay, disease production xanuunkan inuu dhashaa waxay ku xiran tahay markaa 3 factor. Number of organisms marka tirada jeermiska ee jirka aaga soo galo ilaa 100,000 in ka badan lagu qiyaaso. State of gastric acidity marxaladda markaa acid calooshaada. Acid waxaa sida naqaan difaac ay kamid tahay oo bakteeriyooyin fara badan waxa weeye acid uma dul qaadan karaan way ku dhintaan. Marka haddii acid calooshaada ay hooseyso ama ay yar tahay waxay taasi ku saamaxaysaa markaa bakteeriyada inay si fudud xanuunka ay kugu keento. Ama dadkan qaar dawooyinka gastric acidity hoos u dhiga acid caloosha hoos u dhiga. Marka kuwaas oo iyaga halis buu ku jira. Possession of lahaanshiyaha ay leedahay markaa V antigen by organisms marka surface antigen-ka ay leedahay markaa jeermiska waxyaalo xanuun ku dhaliyo laba loo kala qaybiyaa. Waxa la yiraahdaa somatic antigen oo markaa ama capsule antigen-ka loo yaqaana ogow sare marka capsule-ka sare ee bakteeriyadan ku leedahay ama flagella antigen baa loo yaqaana H antigen oo markaa ay ku leedahay markaa dibka waxyaalaha xanuunka bakteeriyada ay ku dhalisay ay leedahay bay kamid. Organismska markaa multiply wuxuu ku timid in the lumen markaa of short period marka small intestine-ka mindhicirka yar luminka ama luminkiisa ayuu markaa bakteeriyadan ay ku sii tarmaysaa from the submucosa waxay usii gudbaysaa markaa xuubkii hoose halkaasoo markaa xuubka hoose mucosa waxaynu ku naqaanaa waxa joogo waa mucoska xuubkan epitheliumka gidaarka ka dambeeya ama lakabka labaad ee caloosha ama mindhicirka uu leeyahay. Lakabka labaad waxaa jooga xididada dhiigga nerveski iyo lymphatic ama qanjidhadii markaa waxaa jooga lymphatic system. Marka the organism travel haddaba organismku wuxuu ku socdaalayaa marka mesenteric lymph nodes ama qanjidhada lymphatic systemka uu leeyahay marka small intestine. After a brief period muddo yar oo kooban multiplication ku halkaa ku tarmo here the organisms markaa jeermisku wuxuu gelayaa blood streamka markaa dhiigi isagoo markaa sii maray oo raacaya thoracic duct marka mesenteric lymph nodes isku soo tagaan ay isu yimaadaan waxay sameeyaan thoracic duct ama lymph nodeskaas weyn kaasoo markaasi kadibna waxay usii gooshireen ama usii soconaysaa markaa liverki beerki bay tegaysaa spleen baryeradii iyo gallbladderka markaa xabeetidii bay tegaysaa. After period further multiplication markuu halkaas muddo uu kusii tarmo there sites a huge number of organisms marka waxaa goobtaas gaari doono number tiro aad u fara badan oo jeermiska ah enter the blood stream dhiigu raacaya making onset of clinical markaas xilligaas marka calaamadihiina soo ifbaxay secondary bacteremia marka dhiig lagu daro wadnihii wuu tagayaa wadnihii baa dib u soo bamgareynaya dhiig baa mar labaad oo ku soo daranaya marka labada dhiig uu bacteria dib u soo gasho after few days bacteremia markaas bacteria dhiig lagu arkaya the bacilli ama waxa loo yaqaan salmonellada localized waxay degaysaa mainly in the lymphatic tissue marka lymphatic tissue ama qanjirka uu leeyahay small intestine-ka uu leeyahay loo yaqaan Bise patch kaasay markaa degeen halkaas markaa ay ku tarmayaan Bise patch marka halka bakteeriyada ay ku taranto become hyperplastic buu noqonayaa cellskiisi halka way badanayeen more inflammation fara badan baa ka dhalanaya infiltration waxaa ku soo ururaya coronary inflammatory cellski unugyadii difaaca markaa macrophage-ki
lymphatic cell marka cellski waxaas oo dhan baa iskugu imaan core inflammationkii unugyada lagu yaqaan kadib meesha way bararaysaa formation of waxaa samaysmay irregular waxaa samaysmay markaa nabarkaasoo la yaqaan oval ulcer waa nabar wareegsan qarkiisa markaan eegaynana irregular aan sinayn markaa along the axis of the gut markaa mindhicirka wuxuu ku yeelaa markaa god dheerna oo ku yeelanaya markaa bartamaha mindhicirka uu ku yeelanaya markaas nabarkaas when an ulcer erodes ulcerkii markaa iyada uu sii xoqmo gudihiisa uu sii qodmo into the blood vessels marka xididadii baa qarqarxaya markaa severe hemorrhage dhiigbax aad u daran baa halkaa ka dhalanaya and transmural proliferation waxaa laga yaabaa marka dambe inuu duleeshamo markaa waxaa loo yaqaana markaa mindhicirkii taasoo nagu hogaamin karta ama keeni karta peritonitis caabuq inuu ku dhasho markaa xoobkii ka dambeeyey markaa waxa loo yaqaano mindhicirka ama calooshii ku dhex jirtay maadaama mindhicirka uu qarxayo duleeshamay wixii ku jiro dhan waxay u gudbaan marka peritoneumka xoobkaasi waa meel sterile oo nadiif ah kadib halkaasay gaaraysaa markaa bacteriadii kadibna iyo wixii caloosha saxdada ku jirtay kadibna waxaa meesha ka dhalanaya caabuq markaa peritoneumka inuu markaa inflammation u ka dhasho marka peritonitis marka haddaan kusoo celino waa injection qofku wuxuu qaatay oo liqay ama biyo ama cuno ay bacteria u raacday bacteriada waxay kasii guday marka caloosha way tagtay caloosha acidity way ka baxsatay small intestine bay tagtay small intestine bay marka bacteria multiplication ay ku tarantay small intestine marka mucosi submucosalka marka submucosi xoobkii bay mucosi penetration ku samaysay ay duleelisay kadib waxay soo gudubtay marka waxa loo yaqaan submucosas markay gaadho halkaasay qanjidhadii marka small intestine kasii raacday mesenteric lymph nodes markay isku tagaan marka iyagana waxay sameeyaan thoracic duct kaasaa marka wuxuu ku daray marka inferior vena cava kaasna wuxuu ku sii daray wadnihii markuu dhiigga tagay waxaa loo soo bamgareeyay markaasi jirkiiba dib loogu soo celiyey kadibna waxay tageen blood markuu bacteria dhiigga dib loogu soo celiyey kadib wuxuu tagay beeryarada splinki liverkii markaasi iyada wax loo yaqaano iyo beeryaradii ama ilaa bone marrow reticular endothelial systemka inta la isku yiraahdo kadib meelahaas ay kusii tarmeen markuu kusii tarmay mar labaad baa dhiigga lagu soo celiyey kadib intestineka bay timid marka intestineka ay timaado intestinekii dib ay usoo gashay small intestinekii baa waxay tagtay waxa loo yaqaano glanduska bispachka halkaasi taran fara badan ku samaysay duodenumkii small intestineka qaybtaas u furnaa halkaasi kasii gudubtay waxay dib u tagtay beerkii markay bacteriadaas tagtay waxaa dib loogu soo celiyay markaa oo lasoo raacay markaa biliary systemka ama waxa loo yaqaana bile ducts right hepatic iyo left hepatic common bile duct bay isku yimaadeen waxaa lagu keydiyay marka waxa loo gallbladderka halkaas bacteriada markaa ay degaysaa iyadana qayb ka mid ah waayahay casharkan inta qaybtaas halkaasaan ku joojinayna qaybtii xigtay ayaynu markaa insha allah aynu haddana dib u gelaynaa si qofku u dhegeysan karayo oo waqti ay